بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. inta waxaan dhowr maalmood u joognaa magaalada Dhuusamareeb galmudug shir weynihii sagaalaad shirkii sanadlaha ahaayo ay qaban jirtay hay'adda Heritage marka arrimaha looga hadlayo waa horumarka Soomaaliya waxaan markaa bogaadin mudan oo in la xusana mudan kol haddii horumar laga hadlayo hay'adihii faraha badnaa ee dalkan markuu burburay la abuuray ee dadka aqoon-yahanada iyo ganacsatada iyo khubarada Soomaaliyeed oo gudaha iyo dibadda diasporaha isaga yimid ay abaabuleen oo ay ka mid tahay oo hormuudna ay u tahay shirkadda weyn telecommunicationka hormuud oo markii horena howl badan dalkan ka soo qabatay oo isgaarsiinta iyo lacagaha iyo maaragtay isu gudbinta iyo xiriirinta Soomaalida kala luntay gobolada dibadda iyo gudahaba ka shaqeysay oo qalabka keentay iyo teknolojiyada maanta ugu casrisan kadibna aan uga mahadcelinayno in la xusana mudan serviceka iyo adeegyada qaybahoodii kala duwanaa ee kalena aan telecommunicationka iyo isgaarsiinta kaliya ku ekaane u gudubtay arrimaha money transferka lacagaha la isu xawilo gashay arrimaha tacliinta hormuud oo kaalin ka geysatay arrimaha caafimaadka iyo isbitaalada ay gacanta ka siiyeen iyo adeegga guud ee Soomaaliya ay ka qayb qaadatay shirkadda hormuud waxay mudan tahay in goob walba laga sheego meel kasta oo aan tagnana saas ugu sheegaynaa waa mahadsantiin